ayaamahan waxa dhagaheena ku badanaysay mudaharaad cid kastoo isku dayda tallaabo ku saabsan waxyaalaha noocaas ee qalalaasa ah waynu ka hortegaynaa gacmo adagna waynu ku qabanaynaa waxaan idiin sheegayaa waxaynu u diyaar garoonaynaa amniga gudaha oo dhan inaynu gacmo adag ku qabanno cidda doonaysa inayna khalkhalina geliso waxay doontaba ha ahaato amnigaynu adkaynaynaa cid kasta oo doonaysa inay amniga khalkhal gelisana u dulqaadan maynee labada gacmood baynu isugu geynaynaa tallaabo adag oo sharciga waafaqsanna waynu ka qaadaynaa laga bilaabo imika ciidamadeenuna heegan baynu gelaynaa waxaynu u diyaar garoobaynaa dhacdo kasta oo howlaha shaqooyinkeenna qaranka ku saabsan oo soo hoos gala shaqooyinkaa qaranku qabanaya adag dhacdo kasta oo liddi ku ah oo amniga liddi ku ah innagoo amnigaynu qaabilsannay noocay doonto ha ahaato ayaynu u diyaar garoobaynaa askari kasta sarkaal kasta qof kasta waxaynu u diyaar garoobaynaa oo inaga mid ah oo aynu saacad walba heegan u ahaanaynaa oo aynu si xilkasnimo leh aynu ugu diyaar garoobaynaa inaynu hawshaa adag u diyaar garowno wixii aynu garan weynana innagoo amaamiir ku shaqaynaynaa inaynu gacmo adag ku qabanno haddii ilaahay idhaahdo ayaamahan waxa dhagaheena ku badanaysay mudaharaad adeer soomaalidu meel kasta joogto mudaharaad kama taqaano soddonkaa sanadooynu joogno waa la mudaharaad wuu soo dhacay muxuu mudaharaad ka dhacay ahaa mudaharaadka caalamku dadku waa inay boodhar soo qaataan ay dariiqa maraan oo boodhkaa ay ku sheegaan waxay doonayaan afkana ay ka hadlaan ciidanka booliskuna hareeraha ka raaco dadkeennu ma yaqaano taa dadkeennu wuxuu sameeyaa markay mudaharaadaan laamayday gubaan taayiray ku gubaan oo khasaaray keenaan guryahay jejebiyaan way isboobaan askartay shiidaan taa macnaheeduna waa fawdo markay waxaasu dhacaana askartuna tallaabay qaaday ila fawdo wadkaysan maysa amniga askartu xasilinaysaa dabeedna dhimasho iyo dhaawac iyo xadhigba u yimaadaa mar walba risaltiga u dambeeya khasaaru kaasuu noqdaa mar kasta eega maadaama ay caynkaa tahay waxa weeyaan mudaharaadkaa la sheegayana dawladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha guduhu waxay tiri lama ogola maadaama amarkaa innagu aynu fulinayno cid kastoo isku dayda tallaabo ku saabsan waxyaalaha noocaas ee qalalaasa ah waynu ka hortegaynaa gacmo adagna waynu ku qabanaynaa dadweynahana waxaanu xusuusinaynaa hadduu mudaharaadku kaa yahay adeer nin walba gurigaaga joog inan walay gurigaaga joog qof walba gurigaaga joog dalkeennu waa nabad khilaaf kastoo jira shuruuc baa lagu xallinayaa shuruucdaasaa lagu xalliyaa halkaa nin waliba ha ku xalliyo ha maro laakiin wax qalaalasoo dadkeena dhib ay ka soo gaadho annaguna ma doonayno idinkuna ha samaynina dadweynow booliska la shaqeeya amniga inagoo gacmaha isqabsano ku adkaanayaa taasaynu wax ku ilaalinaynaa hawshaa booliska isgarab taaga taasaynu insha allah awalna saasay aynu ku wada shaqaynayna